هند ما أركيسا هاي مايا ayadee هند أين شيء hindada aad adigu sheegayso waan ilaawayba tan iyo markaan ogaaday inay ninkan xidhiidh la leedahay ma arag tan iyo maalintaa haddii halkan ay joogto ay maqlayso waxaan ku odhanaya anigu waan ku ilaaway haddii halkan aad joogto aad maqlayso waxaan ku leeyahay nolol kalaan samaystay gabadh kale aanan yeeshay anigu waan ku ilaaway haddii halkan ay joogto ma raba inaan wejigeeda arko mana doonayo in ay dhegahaygu maqlaan kaba dambays xiriir ayaa dhex maray Khalid iyo Hind wuu yimid Taariq soo noqay sheekadii ayuu ogaaday waxa uu tagay Khalid dagaal ayaanu ku qaaday Khalid aad ayaanu carab badnaa isagu aadna uga xumaa sidaa awgeed saaxiibkeena iskama difaacin aniguna fariintu waan kuu soo diray si kalgacal iyo ixtiraam ku jiro weliba la kulankaaguna kalgacal iyo ixtiraam ayuu ma doonaysa inaad ogaato qofka ku yadha adiga aad ayaan ugu helanahay inaan ogaado qofku yahay waad u heelan tahay ahow sidaada fikirkaaga hadaa bedelin Insha Allah. halkaa ka eeg كانت ma garanayo anigu ninkan waxa halkan uu ka qabanayo muxuu halkan ka qabanayaa de markaa yaa xaggan keenayba ma sheegi doona ana ku sheegay frisorta stage ana ku sheegi doona friso way fududahay caradaada deji horta anigu ogahay inaad aad u carab badan tahay xaraam 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 wuxuu igu sameeyey ninkan aniga xaraam noloshaydii buu burburiyey wuu isaga khiyaamay ayaa kaa burburiyey noloshaadii wuu burburiyey waxaaba noqdayba meyd waa dilay ninkani waa ku sidee waxaad ku hadlaysaa adigu martidayada ayaa tahay oo aan weliba jecelnahay ahlan wasahlan baanu ku leenahay waad ku mahadsantihiin ku-xidhnaashahaad mar kaste aad ku xidhan tihiin barnaamijka almusaamax kariim qisada aan maanta idiin haynaana waa maqrib khilaaf u dhexeeya laba saaxiiba weliba ka sii badan saaxiibtinimo yacni waa qaar isku dhow imaafti labada dhinacba aan u yeedhno saaxiibul cilaaqaha oo ah Khalid aan soo wada dhaweyna Khalid أهلا وسهلا مدن تشارجي ahlan wasahlan aad ayaan ugu faraxsanahay la kulankaaga aad mudane ayaad u mahadsan tahay ii fariiso ilaahay ku Assalaamu daayo calaykum. waanad ku mahadsan tahay waxaan imaashaha iga mahad celinayaa si aad iga aqbasheen dalabkaygii iyo sida aad ayaad fiican u ii soo mahadsan tahay. dhaweyseen aad ayaad u mahadsan tahay Khalid waxa haysta mushkilad isaga iyo saaxiibkii oo isku qaraaba yihiin ma eedada ayaa dhashay Taariq haa daariq haddaba waxay ahaayeen saaxiibo lilaahiya sida mar kastaba dhacda sida awgeedna barnaamijka wuxuu yimid inay ku heshiiyaan waayo waxa ayaan saaxiibo aad iskugu weyn waxaana luntay saaxiibtinimadoodii mid baan weli aan ka quusan saaxiibtinimadoodii oo doonaya inuu soo ceshto saaxiibkii kaasina waa Khalid iyo arrimihiisii haddaba Taariq gabadh ayaa u dooneed waxaana u dooneed habar wadaagtii xidhiidhkooguna aad ayuu u wanaagsanaa inay isguursadaanna way doonayeen Khalid laga yaabaa inay ku jirtay xogaa xaasidnimo iyo maseer weliba dhanka Taariq muddo ayuu Taariq maqnaa aan oran karno safar ayuu ku maqnaa dadkii ayaa isku arkay gabadhii Taariq u dooneed iyo Khalid yacni dad ehla ayay yihiin iyagu micnaha gabadha u dooneed Taariq waxay habar wadaagtii sheekadii ayaa sii dheeraatay dadkii ayaa arrinkii sii buubooniyey kadibna gaarsiiyey Taariq in uu gabadhii u dooneed uu xiriir ka dhexeeya Khalid waxaad ii sheegtaa Taariq gabadha u dooneed magaceedna hind ayaa la yidhaah Hind. haa hind xiriir ayaa dhex maray Khalid iyo Hind wuu yimid Taariq soo noqay sheekadii ayuu ogaaday waxa uu tagay Khalid dagaal ayaanu ku qaaday Khalid aad ayaanu carab badnaa isagu aadna uga xumaa sidaa awgeed saaxiibkeena iskama difaacin waxa uu ku yidhi xiriir baa naga dhexeeya aan iyo Hind gacan bay saareen labadoodii xiriirkooguna wuu kala go'ay maxaad saas u samayseenaa anigu sidaa maan samayn oo khalad maan gelin taariikhna waxaa walaalkay oo kale oo booska walaalnimo ayuu igu jiray waan gartay laakiin dadka ayaa warxumo tashiil boonbooniyey oo gaarsiiyey Taariq si aan wax u jirin ayay wax ugu sheegeen waxayna ku dhaheen inaan anigu cilaaqaad la leeyahay Hinda aniyo Hindi maxaad ayaan wada dhiganaynay isku waxbarashaan heenaaniyadu waan gartay waxaanan baranayay injineernimada makaanika waan gartay Hindina waxay dhiganaysay bodyguardnimo waan gartay annagu saaxiibo kumaanan lahayn mahadka aniguna waxaan ka soo qaaday caayiladayadoo kale iyaduna ilmaadeer ayay ahaayeen Taariq waan gartay anigana Taariq habar wadaagay ayuu ahaa waayo dad isku dhow ayaan hayn waan isku iman jirnay waanan israaci jirnay
yacni dad ehelun baan ahayn. waan gartay Daariq asxaabtiisii wax nala dhiganaya annaga ayaa arrinkii si kale uga dhigay in aniyo hindi xidhiidh naga dhexeeyo micnaha. Hind sidaa awgeed ayaa keentay anigu inaan isku dhex yani yaaco dadkii ayaa oon weliba shaqgeliyey waan gartay waan isku dhex yaacay markii aan maqlay hadalkaas aniyo hindina waan waan dhibanahay gartay waxaan ku dhibaatoonay maxaa hadallada dhacay dadka markaa aniguna saa sidoo saxda kale ah? iyaduna markii uu yimid daariq uu kuu furay arrinkan maxaa tiri maxaa taleefanka dhacayna ayuu igaga soo qayliyey taleefanka weliba isagoo igu soo qaylinaya taleefanka ayaa wuxuu igu yidhi inaan ku arkaan doonayaa wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan ku arko kadibna waxaan ku kulannay maqaaxi aan tegi jirnay micnaha kadibna wuxuu igu yidhi wax kastoo dhacay inaad tahay adigu walaalkayga khiyaameeyey oo hinde iga shukaansaday waxaan ku yidhi waa laga fiican yahay inaan ku dhex dagaalanno maqaahidan aniguna waan u dulqaadan kari waaye hadalladiisii waa aniga igu lahaa aad ayaan iigu xanaaqay si xubna uu ila hadlay aniguna waan dulqaadan waaye markaa isagu iguma iman inuu runta wax iga weydiiyo laakiin wuxuu yimid inuu xidhiidhku bartaa ku kala go'o waayo si xubna uu u hadlayey oo intaa wixii dhacayna miyaad isagu isdagaasheen weliba rabay micnaha miyaad isdagaasheen gacan iskula aad tagteen ayaan gacan isku iskula maagnay aniga tagteen isagu dagaalkii dhex maray aniga isaga waxaa 2011 saddex dabeeqadeedii sano iyo badh haa waqtigaas ilaa hadda dabeeqadii 2011 annagu haddaba waan u dirnay fariintii daariq bal aan aragno haddii uu oggolaaday inuu yimaado bal aan wada aragno labadeennu khaalid iyo daariq khaalid wuxuu yimid inuu la heshiiyo daariq daariqna wuxuu u xanaaqsan yahay khaalid sababtoo ah wuxuu uga shakiyey waqtiyada ka mid ah muddo gaarsa 3 sano markay dhacday mushkiladdu wuxuu ka shakiyey inuu khaalid xidhiidh la sameeyey gabadhii u doonay daariq waan wada maqalay qisadu siday ahayd haatan daariq stuudiyaha bannaankiisu ku sugan yahay waxaan sugayaa intaan ishaarada ugu yeedhayno haddaba ha soo galo daariq ahlan wasahlan daariq waan ku soo dhaweynayaa aad baad umahadsantahay markaad mudane qaadanaysaa milyanka fursad aan ku faraxsanahay bay ii tahay la kulankaagu waana igala qiimo badan tahay la kulankaagu ilaahay cumrigaaga ilaahay ha dheereeyo. ku barakeeyo mudane runtii aniguna aad ayaan ugu faraxsanahay la kulankaaga aad baad u mahadsantahay marlabaad mudane waan ku soo dhaweynayaa runtii Mahadsanid. adiga markii ugu horreysay ood fariinta aqbashay waan ku arkayay wejigaagu maasha allah aad ayuu u farxumaa Alxamdulillah. waanan kaaga mahad celinayaa maashaad alxamdulilah ilaahay ha insha ku allah barakeeyo mar haddaad timid masarna waad arkaysaa waa markii kugu horreysay masar timaado soo waa maaha markii ugu horreysay aan masar imaado waa qasab inaad masar timaado qofaan masar Insha arkin baa Allah. jira daariq ahlan wasahlan ayaan ku leeyahay barnaamijkan aad aragtay waa barnaamij cusub oo aan ahayn milyankii wax xidhiidha lama laha milyankii bes laakiin natiijadiisu waxaa laga yaabaa inay ka fiicnaato malaayiinka waxaa laga yaabaa inuu natiijadiisu ay tahay insaannimo insha allah kalsooni dadnimo ayaa ka badan malaayiinka insha allah insha allah insha waan allah rajaynayna qof ayaa iga dalbaday inaan fariin kuu soo diro adiga waa qof adigu aad cisayso anigu miyaan garanayaa waad garanaysaa bes laakiin isagu wuxuu iga codsaday in aan fariin kuu soo diro aniguna fariintu waan kuu soo diray si kalgacal iyo ixtiraam ku jiro weliba la kulankaaguna kalgacal iyo ixtiraam ayuu ahaa ma doonaysa inaad ogaato qofka kuu yeedha adiga aad ayaan ugu helanahay inaan ogaado qofku yahay waad u heelan tahay ahow sidaada fikirkaaga haddaa bedelin Insha Allah. halkaa ka eeg ka dhijo muxuu ahaa waxani muxuu ahaa kan fadhiiso wasiiro deji maxaa ku Ninkan- helaynaa muxuu halkan ka qabanaya wasiiro deji xoogaa fadhiiso horta daariq imaqal daariq fadhiiso horta isdeji fadhiiso imaqal waa ku sidee maxaa dhacay
ma garanayo anigu ninkan waxa halkan uu ka qabanayo muxuu halkan ka qabanayaa te markaa yaa xaggan keenayba anaa marka sheegi hore doona anaa kuu sheegay frisorta stagio anaa kuu sheegi doonaa friso way fududahe cadhadaada deji horta aniguan ogahay inaad aad u cadho badan tahay waayo adiga qalbigaagu aad ayuu u wanaagsan yahay qof naxariis badan baa tahay bes laakiin cadhadaada aad u badan xoogaa istaji daariq siro deji waan kuu sheegaya wuxuu yimid halkan anaa kuu sheegaya ruuxan insaanka aad ayuu kugu khaldamay adiga wax badan ayuu kugu khaldamay adiga insaankani wuxuu kaa dayacay jacaylkaagii oo aad jeclayd oo ahayd gabadhii eedadaa dhashay hind wiilkan dhallinyaradaana 3 sano kadib uu khilaafkiinu jiray waa u qoomameeyey waxaanu ka qoomameeyey wixii uu kugu sameeyey xaaraam wuxuu igu sameeyey ninkan aniga xaaraam noloshaydii buu burburiyey wuu isaga khiyaamay ayaa kaa burburiyey noloshaadii wuu burburiyey waxaaba noqdayba meyd waa Salaamaad. wilkilay ninkani waa ku sidee waxaad ku hadlaysaa adigu martidayada ayaa tahay oo aan weliba jecelnahay ahlan wasahlan baanu ku leenahay istaji xoogaa waa ku sidee intaasoo dhan ma istaahayshid waa ku sidee mawduucan aniga xasaasi laakiin isira deji arrinka waan hagaajinaynaa hindi ma arkaysaa haya maya ayadee hindi ayaan sheegayaa hindada aad adigu sheegayso waan ilaaweyba tan iyo markaan ogaaday inay ninkan xidhiidh la leedahay ma arag tan iyo maalintaa haddii halkan ay joogto ay maqlayso waxaan ku odhanaya anigu waan ku ilaawey haddii halkan aad joogto aad i maqlayso waxaan ku leeyahay nolol kalaan samaysta gabadh kalaanaan yeeshay anigu waan ku ilaawey haddii halkan ay joogto ma raba inaan wejigeed arko mana doonayo in ay dhegahaygu maqlaan Amiin. kaba dambays ugu dambeynba haddii halkan ay ku sugan tahay oo ay i maqlayso anigu waan ku ilaawey noloshaydina waxaan la bilaabay gabadh kaloo kaa wanaagsan waxaanaanu dhisan doonnaa mustaqbalkayga anigu adiga waan ku ilaawey sidii qof aanan garanaynba kumaba garanayo waxaanan doonayaa in farriintaa layga gaadhsiiyo meel kasta ay joogtaba wallaahi xaq ayaad u leedahay aan ka wada hadalno runta ma runta ayaan ka wada hadalnaa mise khayaaligaasaan ku jirnaa soo dhowow runtii khaalid waa saaxiibkaaga dhabtaa kadib wixii dhacay wuxuu igu kaa soo dhiibay farriin bal aniga ayaa ku ma isaga ayaa farriinta aniga ii soo diray haa bal aan ku akhriyo wuxuu ku leeyahay saaxiibkayga qaaligahaa walaalkayna ah ee daariq yaab cadhada badani dadka ayay kala geysaa haddii aad adigu tahay qofka i dulmiyey aniga khaladkaygii ayaa ka weynaa oo saddexdeennana dulmiyey waan ku dulmay markii aan cadhadaada fahmi waayey kaasoo ii sababi waayey inaan isku barraxo waxaan kaloon dulminay jacaylkaagii oo adiga mooye cid kale aan jecleen goortii aad ka fogaatay hadalladii dhugodi idhiyoo dhan been ayay ahaayeen dulmi badan ayaad labadiinnu na gasheen goortii aad kala fogaateen laakiin anigu runtii naftayda ayaan dulmiyey goortan waayey saaxiibkay oo waxa ani isaga naga dhexeeyey ay ka weynaayeen cadho kaste ma hayo waxaan isku beri yeelo wixii aan idigu sameeyey laakiin waan qirayaa dembigayga oon weliba ogahay inuu ahaa mid weyn aniguna maanta halkan ayaan ku suganahay si aan kugu raaligeliyo kugu cudurdaarto dadkaasoo dhan hortooda intaasoo keliya ma aha weliba inaan noqonno sidan markii hore ahaan jirnay laakiin adiguna waa inaad ku noqotaa jacaylkaagii oo aad jecleed adigana khaas kuu ahayd anigu wax kasta raalli ayaan ka ahay ood adigu igu amarto wuxuu yidhi anigu raalli ayaan ka ahay wax kastood adigu i amarto wax kastoo aan rajaynayaana waxa weeye inaad adigu i saamaxdo walmusaamax kariim oo ma isagaa soo qoray farriinta haa isagaa soo qoray oo isagu ma leeyahay dareenuu igu soo qoro warqadan haa haddii uu isagu dareenkaaba leeyahay miyuu igu samayn lahaa waxa uu igu sameeyey waa beenaale haa waa beenaale waan anu garanaya gartaba isaga aan mid ku dhaho adiga daariqow adigu insaan fiican ayaa tahay insaankan muddo 3 sano kadib markuu isku dayay inuu kula hadlo adiga ma awoodeen maanu imaadeen barnaamijkan waayo barnaamijkan waxaa la yidhahdaa almusaamax kariim waxaan u yimid stuudiyahan inuu isku dayo inaad soo ceshataan oo welibana saaxiibtinimadiinii stuudiogii uu yimi si ay dadko dhammin noo arkaan antayo aan stuudiyoga Maya, ku sugannahay maya, oo maya. micnaheedu tahay inaan stuudiyoga wada isagu joogno shaashadunbu kaa muuqdaa weliba qoyskayga dhammaan dadko maya dhan walaal hortooda siradaji xogaa
ha arkaanba dadku haddii adiga ku raali gelinayo adaa guulaystay waayo adiga ayaa guulaystay isagaana khaldanaa raaligelintu way sahlantay wuu ku raali gelinayaa haddii aan anigu qof ku khaldanno waanu raaligelinaa sahlan weeyaan eeg noloshan dadku way khaldamaan wayna qoomameeyaan raaligelin way anna dhibkoo bixiyaan dhan baan maraya aniga ayaa dhibanaa waxaananu burburiyey mustaqbalkaygii Kudhe. sababta ninkaas awgeed kudhe isaguu ku maqlayaa shaashadda eego kudhe adigu maxaad u timid halkan weydii khaalid adigu halkan maxaad u timid waxaan doonayaa inaan ogaado walaalkay hadalladii ku soo gaadhay hadalla saxa may ahayn waxay dadku bambuuninayeen ayay ahaayeen maxaa kugu kalifay Adiguna iyaga inay kama isoo gaarsiin fiirsan. hadalladaas Wallaahi, ii sheeg dee aniga walaal, maxay aniga isoo fursadii gaarsiinayaan maad ii siin. sheeg dee aniga sababta fursadii maad hadalladaas siin. ii soo gaarayaan Aan maxay isku barraxo. Ambaan kugula fursad hadlo noocee baan wixii ku siinay hadala markaa ee bal ii adiga sheeg kulahaayeen oo dhan noloshaydi ayaad baabiisay Aniga dhibaato badan baad ii gelisay waxaad igu Daar, kaliftay adigu waad cadho badan inaan ka tahay. haajiro magaaladii aan ku dhex noolaa waxaad iga dhigtay magaaladii aan ku Daar, adigu noolaa waad cadho badneed. inaan anigu ka cararo waxaan ka fogaaday gurigaygii iyo qoyskaygii markaasaa intaad Waayo, ii timid adiga kulama haddii hadli cudur karayn. daaranaysa qoyskaygii Adigu wax xitaa waan ka carar aad u markaasaad cadho badan. Sidaa ooga si baxaad fudbaan igu igu yimid. imanaysaa marka halka waxaad u timi oo cadhadiisa dishi waaba marka taa mushkiladda halkan taalaa bal eeg iminka sababtoo waxaad dhanba leedahay cadhadaada ahayd marka halkan waxaad u timi waayo inaad aniga cadhadeeda aragto soo maaha cadhadaada ma adiguna dejinaysid waxaad doonaysaa soo maaha Anigu inaad cadhadeeda waan ku ogaato garanayaa ilaa yaraanteenii waan ku garanayaa adugu cadho badan tahay waxaan halkan nagu yimidna inaan xal u helno arrimahan yaa ku yidhi Ha. adiga horta halkan kaalay Arrimahaas yaa ku yidhi dee ii sheeg wallahi waad i dulmaysaa daariq waad i dulmaysaa daariq imaqal wallahi aniga waad i dulmisay filisoorta imaqalo waayo maxaad sidaa igula Waxba hadlaysaa cadhaysa aniga Daariq, maxaa saas oo dhan imaqal, aad igu filiso, qaylinaysaa filiso. ceeb weeye wallaahi adigoo fadhiya inaan saas ku galno maaha adoo fadhiya waayo lahadal, dunidan kudhe wax inaga iska dhahayso. eeganana walaal waayo anigu halkan waxaan u yimid inaan xidhiidhkeenni toosiyo si aanay u noqon xidhiidhkeenu sida imika aad samaynayso maxay kula tahay may arrinkani ma sahlana kan markii aan arkay waxaan dareemay madaxiba inuu ii soo dhacay isteji haddaba isqabooji mise anaa ku qaboojinaya isqabooji isteji wax yar isteji daariqow isteji khaalidow adigu waa inaabtiga waanad og tahay inuu cadho badan yahay muran ayaad la gashay halkii aad u dejin lahayd waxaan wada nooleen ilaa yaraantayadii waa la noolaa aad baan u garanayaa waayay haddii aad la nooleed oad garanayso inuu cadho badan yahay halkii aad ka carari lahayd laabta gasho oo Anigu ku dhig isaga aad baan u inaabti garanayaa. ma jiro wax dhexdeena aad hadalkaasna igu muu xanaaq badan saxsaneen yahay. intaad ku leedahay aayo ha hadalkaasna ma habbooneen isaga ayaa isku adiga kay bedelay naftirkaagu habdhaqankaagu waa xun yahay isaga isku kay bedbedelaya waayo markii hore aniga isagu meel kaste ayaan wada tegi jirnay waxbaan soo wada iibsan jirnay waan wax horoo lagu damaashaadi soo jirnay gudbay haddii aad isagoo ogeedba sheegaya. inuu cadho badan aad yahay ayaan iskugu faraxsaneen xidhiidhkayagu sida waad imaqal waad garanaysaa adigu inuu cadho badan markaa yahay wuu cadho badnaa laakiin wuu isbedelay oo wuxuuba keenay hadduu ii xanaaqo inaanu ii saamixinba haddii uu iguba xanaaqo bes xidhiidhka bashaas haddaba igu jaraya waan maqalnay ma hadda doonay inuu ii qisada. saamixo Waana muddo fahanay. dhanba ha eeg haddaba iminka adigu haata waad fahansan tahay waxba may dhex marin isaga iyo iyadu waayo isagu arrinkan beri ayuu ka yahay waayo isaga hadalkiibaa maskaxdiisa ka weynaaday kadibna haa ayuu ku yidhi laakiin dadka ayaa hadalladan waday run ahaantii waxba may dhex marin isagu way sheegay waan maqlay anigu runna wuu sheegayey waxba may dhex marin haatan wuxuu ka yimi maqrib waxaanu naga codsaday inaan adiga ku keenno sharaf baan inoo tahay farxaddaadii iyo wanaaggaagii inaan aragno dadkoo dhanna aad ayay kugu faraxsanaayeen sidaa ogeed baal heshiisiina ma jira meesha ha iyo maya suurtagal maaha inaad adigu diiddo ilaahay baa dembiga dhaafa bes laakiin adiga mid kastoo inaga naga midaba ilaahay buu dembidhaaf weydiistaa qof kastaana waa uu saamaxaa haddii uu alla saamaxayo inaguna bashar baan nahay waa qasab inaan saamaxnaa sababtoo ah maqal daariq eeg mas'aladan haddii aad istaahil ku tahay adigu anigu waxaan ku leeyahay haba saamixin wallaahi saw masahlana waa runtaa bes anigu waxaan ku leeyahay may haddii aad arrinkaa Maya. istaahil ku tahay maya wallaahi ma istaahishid qalbigaagu wanaagsan yahay ma istaahishid way soo noqon doontaa noloshaadu runtii yaana khaldamin bashar bay nahay ilaahun baan khaldamin sidaa awgeed waa qasab inaan khaladka saxno ma doonayno khaladka inaan nolosheenna dhan ku jiro adiguna qalbiga ayaad ka ooyeysaa iminka qalbigaad ka ooyeysaa waayo isaguba uu ku ciseeyaa waxaa ku gubaya waan ogahay laanna waad jeceshahay taasaana sabab u ah ooyinta
hay meherkaasaan la soo gaadhnay khaalidow heerkaasaan la soo gaadhnay taariq intaasaad la rabtay ma sidaa ayaad ku maxaad samaynaysaa saasoo ninka dhan igu gelaysaa aniga ii sheeg maxaad khaladkaa u gashay ii sheeg ii sheeg maxaad khaladkaa u gashay ii sheeg isagu waa ka qoomameeyey qoomama ayuu ku jiraa istakfirullah alcadiim daariq isagu waa ka qoomameeyey astakfirullah waa qoomameeyey baleeg isaga maharkasaasuu madaxiisu u fooraro madaxiisu waa fooraraa waanu qajilsan yahay waanu murugaysan yahay waanu qoomameeyey aad ayuu uga shalleeyey waayitaanku ku waayey adiga sababtoo ah waxuu dareensan yahay in uu xidhiidhkiinnu dib u soo noqonayo kaamana maarmo waayo adigu waad garab taagnayd in badanna waad cisaysaa waa sababtaa sidoo kalena khilaafkiinnu aad ayuu u fogaa khilaafkuna ma istaahilo inuu ku bilaabmo is-afgaran waa kadis ayuu ahaa haddaan kadisayn ma iskhilaafteen idinku waad wada joogi lahaydeen labadiinnu bas aan degdeg ayaa arrinkiinii u noqday labadiinna gacanqaadkiinnuna degdeg ayuu ahaa taasaana sababtay xidhiirkiin inuu go'o dib xidhiirkii ma soo ceshanaysaan oo idinka wada socda ehelkii ma wada tegaysaan laabtana ma iskashanaysaan ilmaafti ayaad ahaydeen dhiiggu biyo ma aha kaba soo qaad in uu isagu run sheegay ninkani qoomamadiisuna waa run raaligelintiisuna waa run adigu un go'aanka gaadh haddii aad saamaxan iyo haddii kale soo xasuuso dardaarankii awowgan ilaaha u naxariistee wuxuu uu adiga kugu yidhi daariqow wuxuu yidhi waa qasab in aan cilaaqaadkeenna ilaashanno weliban uu yidhi hana kala dheeraanina waa dardaarankii awowgeen wallaahi markaad oyday ayaan soo xasuustay anigu waa dardaarankii awoogay waa runtii weeye fiicnaan laheeda dardaarankaas dadkoo dhan ay maqlaan waayo dadka idinka isku kindiray oo shakiga idinkala dhex gelayey oo xidhiirkii o dhan baabi'iyey teeda kale qof waloo insaana khalad waa galaa kii adiga ku xaasida iyo kii kaa hinaasaba fiicnaan laheeda inay maqlaan iyo kuwa adiga ku necab qof waloo dhibaato kugu hayay ilaahay baanu ku daynaynaa dhibaato idigu hayaan ka wada fiicnaan laheeda inay maqlaan qof walbaana hadaf ayuu leeyahay ilaahay ayaanu ku xawlay maaha qof inuu maqloon hadallada dadka insha allah wax kastoo burburayna way hagaagi doonaa haddii ay jirto dareen dhexdiina oo aad ku wada noqotaan idinkoo gacan keliya haysta wax kastaba soodiibay kusoo wada noqonayaan insha allah maxay kula tahay adiga ma laga yaaba inaad saamaxdo ood intaad eegto weliba ad ku dhahdo on ku saamaxay walmusaamax kariim ma laga yaabaa haa waa laga yaabaa ma saamaxday walmusaamax kariim والله qof wanaagsan baad tahay aad ayaan Ma hadsanin. qofkan Waxaad u mahadsan ayaan tahay wallahi waxaasoo dhan maad istaahisheen laakiin wadaag isaguna wax dembiya ma laha miskiinka laakiin dhiigu biyo ma noqdo mahadsanid mudane waa runtaa waan ku baryayaa walaal isaan waan ku saamaxay Anigay saamax. anigana i saamax walaal